Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada caawa waxaan dhiganaynaa move français en Somali partie numéro 7 kelmadihii Faransiiska qaybtii toddobaad baan dhigan doonaa. Kelmadaha caawa aan dhigan doono waxay u badan yihiin verbiyo xabad qoraa ku jirta marina kelmado iska caadi oo nooc ah. Kolka kelmadaha dhigan doono sida caadadu ahayd waxaan bilaabi doonaa lecture à haute voix inaan akhriyo kelmadaha kadibna aan macnaha aan bilowno. Kelmadaha lecture à haute voix kelmad aan ka bilaabo kelmada ugu horeysa aimer, envoyer, manger, affecter, admettre, amorcer, bondemer, arroser, assister, apparaître, anéantir. Marlabadan ku celiyo aimer, envoyer, manger, affecter, admettre, amorcer, bondemer, arroser, assister, apparaître, anéantir. Aimer macnaheedu waa jeclaasho. Waxay isku macno yihiin admirer oo ka bogasho ah, apprécier waa jeclaasho, adorer waa jeclaasho. Saddexda kale kelmadood bay isku macno yihiin. Adorer macno labaad bay leedahay oo waxay noqotaa ilaahay caabud maxay noqotaa alla caabud bay noqotaa, jeclaashana way noqotaa. Aimer bay isku macno yihiin macnaha ka soo qaadanayno. Aimer, nous aimons beaucoup la natation. Waxaan jecelnahay beaucoup aad ama in badan la natation badaasha. Haddaan xabad faraska aan gelino xabada kelmada kale ku xigta waa envoyer. Envoyer waa maxay? waa dirid ama waa u dirid. Waxay isku dhow yihiin kelmada transmettre laakiin iyadu waa gudbin, waa wax la gudbinayo, laakiin envoyer-na waa wax aad diraysid oo kale. Kolka isku macnaha way isku dhow yihiin uundeega. Maxay kale kelmada envoyer haddaan phrase gelino j'envoie une lettre de motivation. Waxaan dirayaa letter ama fariin dhiirigelin markaan leedahay kale. J'envoie une lettre de motivation ama demain je t'enverrai mon cahier des maths. Beritoole waxaan kusoo diri doonaa buuggayga xisaabtan kusoo diri doonaa. Kelmada kale ku xigta waa verbe manger. Verbe manger af Soomaali waa maxay? waa cunid. Waxay isku macno yihiin ama isku dhow yihiin. Waxay isku macno yihiin waa défaut. Verbe défaut. Je mange une banane ama le lion mange une gazelle. Libaaxii wuxuu cunayaa dero. waa odhan kartaa macno badanna waad gelin kartaa, laakiin waxaa muhiim ah inaad fahantid verbe manger af Soomaali waa maxay? waa cunid. Verbe kale ku xiga waa maxay? waa verbe affecter. Verbe affecter af Soomaali waa maxay? waa saameyn. Waxay isku macno yihiin verbe influencer. Waxay isku macno yihiin verbe influencer waa saameyn ama waa raadayn. Kolka cet événement nous a affecté énormément. waxaad oranaysaa dhacdadani wayna si aad ayay noo saameysay. marka leedahay kale cet événement nous a totalement affecté ama nous a affecté énormément. si aad ayay dhacdadani noo saameysay. je me suis influencé, je me suis affecté waa lay saameeyey. marka leedahay kale mon ami m'a totalement influencé. saaxiibkayba aad ii saameeyey. nacam arrin raad ayuu kugu reebay. kelmada kale kusii xigta waa verbe admettre. Verbe admettre macno badan bay leedahay. 3 macno ayaa ugu muhiimsan, laakiin macnaha ugu sii muhiimsan inta badan waa qirid oo kale, waa aqbalid bay noqotaa, garawsina way noqotaa. nacam waxa aad gelinayso reconnaître ay noqotaa. kolka waxaa lamid ah verbe admettre waxaa la macnaha verbe avouer baa la macnaha. waxaa kaloo la macnaha verbe accepter. waxaa kaloo la macnaha reconnaître waa la macnaha. intaasoo macnaba way u leeyahay verbigani. macnaha anigu waan usoo qaatay muhiimadan ka lahaa waa qirid oo kale ayaan doonaya ayaan soo qaatay, laakiin waan ku tusaya verbigu inuu macnooyin badan yeelan karo. macnihiisa badanna waan soo macneeyey. iminka waxaad oran kartaa je ne peux pas admettre ce genre de choses. anigu ma qirayo ama ma aqbali karo waxaasoo kale ma aqbali karo. markaad leedahay c'est quelque chose inadmissible waa wax la aqbali karin. verbiga kale ku sii xiga
waa verbe amorcer oo macnihiisu yahay bilaabid. waxay isku macno yihiin verbiga macnihiisa waxay isku macno yihiin ama isku synonym yihiin. waa verbe commencer ama entamer. iminka haddaan phrase geliyo ama phrase geliyo, nous amorçons un nouveau chapitre. Aujourd'hui, mes enfants, nous allons amorcer un nouveau chapitre. maanta ardaydeed ama ciyaalkeygiyo maanta waxaan bilaabi doonaa chapter cusub ama chapter cusub ayaan bilaabi doonaa. kelmadda kale ku xigta waa pandemic. waa cudur caalami ah. af Soomaali pandemic waa maxay? waa cudur caalami ah. inta badan aan idaacadaha ka maqalno la pandemie coronavirus ama xanuunka caalamiga ee la yiraahdo corona ama covid-19. waa coronaviruska waa cudur caalami ah. sababta daraadeed waa la yiraahdo la pandemie coronavirus influence énormément l'économie mondiale. xanuunkan caalamiga ah ee coronavirus wuxuu saameeyay influence. kelmadan soo aragnay marka hore soo macneynayay markaan aan macneynay verb affecti kelmadiiban yaan isticmaalayna iminka. la pandemie coronavirus influence wuxuu saameeyay énormément si aada l'économie mondiale dhaqaalihii adduunka. economy waa maxay? waa dhaqaale. mondialna waa adduunka ama waa caalamka. influence waa saameyn. kolka macnaha kelmadda macnahan ka rabay ayaan macneynay. macnaheeguna waxaan ku macneynay waa cudur caalami ah. waa cudur caalami ah sida coronavirus oo kale. kelmadda kale ku xigta waa verbe arroser. arroser waa maxay? waa waraabin. waxay isku macno yihiin irriguer. verbe irriguer isku macno yihiin. le gardien arrose le jardin. waardiyihii wuxuu waraabinayaa beertii. si la période d'irrigation waa waqtigii waraabitaanka. wax la waraabinay. verbiga kale ku xigta waa verbe assister. assister waa maxay? waa caawin ama waa ka qayb galid. caawin waxaa la macna verbe aider, secourir, soutenir. saddexdaa kale verbe bay isku macno yihiin. verbe assister ka qayb galid marka noqotana waa participer ama prendre part. verbe prendre au part la raaciyay ka qayb galid bay noqotaa ama participer bay noqotaa. waa isku macno. labada macnoba verbigan uu leeyahay. wax kale macno ka badanna uu iska leeyahay. labada macnood waa ugu muhiimsan oo soo qaatay inaad fahantid. assister waxaa oran kartaa nous assistons mutuellement. anagu waan iscaawinaynaa. ama waxaa oran kartaa il a assisté son coéquipier. wuxuu caawiyay saaxiibkii. coéquipier waa saaxiibkii, qof asla shaqaysiin ama isku leveltiin ama asla socotiin oo saaxiiba tihiin ama ku jira kubad oo kale. inta badan waxaa loo isticmaalaa teammate baa la English. waa laba qof oo isla shaqaysa sida joorada caalamka. joorada iskula ciyaaro kule isku koox oo kala waxaa la coéquipier. kolka waa saaxiiba. mutuellement waa wadaag ama isweydaarsi. nous assistons mutuellement mas caawinayna markaa leedahay kale. in demain je ne vais pas je n'assisterai pas le réunion. ku xigta kelmadda sagaalaad waa apparaître. Soomaaliya maxay? waa muujin. haddaan phrase gelino kelmaddan macnaheega vous m'apparaissez quelqu'un important. waxaad la muuqataa ama waxaad igu muuqataa qof muhiima inaad tahay. kelmadda u dambeysana waa anéantir. anéantir waa maxay? waa détruire. waa baabi'in. waxay isku macno yihiin. détruire waa maxay? waa baabi'in ama waa tirid. vous avez anéanti n'est-ce pas ces choses? war waxaan waad baabi'isay ma? anéanti waa baabi'in, waa tirtirid, waa wax la cirib tiro oo kale oo waa anéantir. insha allah caawalkan ku jujinaynaa. haddaad cusub tihiina anaga iloobina inaad isaabonaysid channelka. insha allah cashar video badan baan soo dhigi doonaa. insha allah waxaan inaga codsanayna inaad channelka si aad saaxiibadiin aad sii gaarsiisiin si ay uga faa'iidaystaan. insha allah dadka cusub tihiina is qor oo